kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ka diyaarinay shirka haweenka ee wada tashiga iyo xaqiijinta qoondada ka qaybgalida siyaasadda ee haweenka boqolkiiba 30 oo lagu qabtay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. barnaamijka waxaa idin soo diyaariyay xafiiska TV-ga Home Cable ee magaalada Garowe. 20kii sano ee ummadda Soomaaliyeed burburka iyo xaaladda dagaal sokeeye ku jireen ayaa waxaa la aaminsan yahay in haweenka Soomaaliyeed ay door lixaad ku lahaayeen arrimo badan oo nabad iyo horumar isugu jira kuwaas oo la dhihi karo waxa ay ummadda u soo jiideen ganacsi iyo isdhexgal ballaaran. inta badan shirarkii xaluhelida dalka Soomaaliya ee dhowr iyo 10kii sano ee la soo dhaafay loo qabanayay siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo meelo badan oo dibadda lagu qabtay haweenku wax door ah kuma aysan lahayn. sidaas ay tahay labadii sano ee ugu dambeeyay ayay haween weynaha Soomaaliyeed iskaga kala yimaadeen gobolada dalka iyo wadamo badan oo dibadda ah waxayna yeesheen shirar ilaa 3-4 gaaraya kuwaasi oo lagu gorfeenayay doorkooda siyaasadda iyo nabadda dalka. waxaana 3 shir oo kamid ah shirarkaasi lagu qabtay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. waxaana inta badan shirarkaasi soo qaban qaabiyay wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska ee dawladda Puntland Marwa Tashiga iyo qaar kamid ah haweenka Soomaaliyeed. haddaba shirkii ugu dambeeyay ee haweenka ay ku kulmeen Garowe 19kii bishan maalintii Khamiisteen soo dhaafnay ayaa wuxuu noqonayaa shirkii saddexaad ee lagu qabto Garowe labadii sano ee ugu dambeeyay gudahooda. waxaana looga hadlayay ama lagu magac daray shirkan ugu dambeeyay wada tashiga iyo xaqiijinta qoondada ka qaybgalida siyaasadda haweenka boqolkiiba 30 waxaana ka soo qayb galay haweenka gobolada Hiiraan Galgaduud iyo gobolada Puntland iyo sidoo kale qurba joog. Marwa Tashiga oo ka hadashay furitaankii shirka ayaa waxa ay sheegtay in shirkan haweenka ay ka dhiiban doonaan doodo iyo fikrado iyadoona sidoo kale carabka ku adkaysay in dastuurka cusub iyo xuquuqda haweenka uu siinayo laga hadli doono shirka oo fikradaha haweenkana iyo qodobada ka soo baxo shirkan mid isaga la mid ah oo magaalada Muqdisho ka dhacay la iswaafajin doono iyadoona ugu dambeyntii wasiiradu ku soo dhaweysay madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole si uu u furo shirka waxayna ku tilmaamtay saaxiibka kaliya ee haweenka Soomaaliyeed ee la jira. mudanayaal iyo marwooyin mudana madaxweyne ujeedooyinka ugu waaweyn ee shirkan isugu nimid waxaan ugu magac darnay waa shirka wada tashiga haweenka Soomaaliyeed oo gaar ahaan ay uga hadlayaan qoondadii 130 ahaa ee dastuurka iyo heshiisyadii dib heshiisiinta ee Soomaaliya ay ku midoobeen. waxaa kaloo inta noo dheer mudana madaxweyne isdhexgal iyo isbarasho aan rabno in haweenka Soomaaliyeed fursad isku helin mar walba xataa gobolada Puntland kuwa tuulooyinka jooga iyo kuwa degmooyinka jooga iyo kuwa gobolada jooga aan mar walba ishaleelin inay u noqoto isbarasho iyo isdhexgal ay u noqoto. sidoo kale halkan waxa iyagana nala jooga xildhibaanada dawladda TFG ahaa oo gabdho iyo wiilal isugu jiro ayaguna shirweynaha nagala soo qayb galay. mudana madaxweyne maadaama aan halkaan joogno aanu isugu nimid goboladaas fogfogna laga kala yimid waxaanu rabnaa in gabdhaha aanu la socodsiino geedi socodka nabadda sidoo ku bilowday iyo meesha uu marayo. waxaa laga yaabaa maqal mooyaane dadka intooda badan inaysan maqlinin go'aamadii Garowe 1 Garowe 2 Gaalkacyo London Istanbul Muqdisho Addis Ababa Nairobi. marka waxaa jiri doona cashar ku saabsan maantay in gabdhaha loo fasiro loona sheego geedi socodkaas meelahaas go'aamadii ka soo baxay iyo waxyaabihii lagu gaaray iyo waliba muxuu roolka haweenku ku leeyihiin gaar ahaan. waxaanu rabnaa in ay madaxweyne haweenku ay wax ka ogaadaan oo looga sheekeeyo maanta shiikh weyn baan u yeernay kaalinta haweenku iyo ka qaybgalkooda siyaasadda roolka ay ku leedahay diinta Islaamka. waxa weeyaan mar walba waxyaabaha nala ku duro waxa weeyaan haweenku inay cagtoodii dheeraatay lugtoodii dheeraatay marka waxaan rabnaa xuquuqdeedii anagu waxaan aaminsanahay in gabadhu ay xaq u leedahay inay wax barato inay gabadhu xaq u leedahay inay biyo nadiif hesho inay gabadhu xaq u leedahay inay caafimaad hesho inay gabadhu xaq u leedahay inay qoyskeeda maamulato inay xaq u leedahay inay miiska go'aan gaaridda fariisato si ay danaha guud oo haweenku ay leeyihiin iyo qoyskuba ay uga waranto sidii loo hirgelin lahaa go'aamadii shirkii wada tashiga haweenka muxuu ahaayay ka dhacay hore uga dhacay
waxaan filaynaa marka uu muxuu ahaay shirkanu dhamaado in ay haweenku ay wax badan muxuu ahaay ka fahmi doonaan sidii ay wax uga xalin lahaayeen caqabadaha adag oo wadanku ku jiro iyo kuwa imaan doona intaba waxaan isleenahay haweenku qayb weyn ayay ka qaadan karaan haddii ay isku duubnaadaan gabagabada shirkan madaxweyne waxaan rabnaa in aanu soo saarno taladeena oo aanu ku kabno go'aamooyinkii hore oo aanu muxuu ahaayay lagu gaaray heshiisyadii aan hore u soo sheegay si aan haweenku yeeshaan cudud midaysan oo meel ay uga soo jeestaan gaar ahaan waxa maanta aad noogu weyn inaanu aad uga hadalno diinta islaamku waxa ay ka qabto haweenka iyo ka qaybgalkooda siyaasadda annagu ma doonayno uma fadhino wax ka baxsan shariicada islaamka inaan sameeyno waxaan nahay dad muslim ah waxaan ku taaganahay ilaalinta xil baa naga saaran ilaalinta diinta islaamka annagana waxaan rabnaa in la ilaaliyo xuquuqdayada waxaan rabnaa inaan la ku xadgudbin waxaan rabnaa meeshii aan ku khaldanahay bini aadan baanu nahay in loo sheego nala toosiyo laakiin aan caqabadna loo kaga dhiginin haween baa tahay xaqna uma lihid inaad ka qayb gashid muxuu ahaayay geedi socodka nabadda iyo miiska go'aan gaaridda in la fariiso maxaa yeelay haddii miiska go'aan gaaridda ka maqan tahay taladii nugulka oo dhanna waa maqan tahay taasuna waxa weeye midda ugu muhiimsan waanu halkaan maanta u fadhino ugu dambeyn mudana madaxweyne maanta waxa weeyaan waxaan kuugu yeeranay waxaan hubnaa inaad tahay saaxiibka haweenka runta markaanu ka hadalno madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiraxmaan waa saaxiibka aanu ku tashano haddii ay ahaan lahayd markaan codayn u baahanahay haddii aanu ahaan lahayd dhiirigelinta haweenka sidaa daraadeed ayaa shirkeenan annaga ayaa rabnay inaanu waxaana googoosano maanta iyo baribu noo soconaya laakiin waxaan rabnay dhiirigelintiisa waxaanu rabnay garab istaagiisa waxaanu rabnay cidiina soo weerarta inuu wax nagala qabto maadaama uu yahay madaxweynaheena maanta xafladan wada tashiga heer qaran ee gabdhaha Soomaaliyeed oo laga doodayo doorka ay ka qaadan karayaan arrimaha Soomaaliya sidii lagu nabadayn lahaa sidii dawlad qaran u dhismi lahayd sidii loo dib u heshiisiin loo samayn lahaa sidii dadkii la isugu soo celin lahaa kala tegay doorka ay ka qaadanayaan maanta inaan halka la soo qayb galo aad iyo aad ii farax gelinaysa waana ku mahadsantihiin ilaahay cafisha waxaan ogahay in gabdhuhu intii burburka ahaa dowr badan ay qaateen gaar ahaan dowrka nolosha dadka markii la kala taxay oo meel walba loo tegay raggii madaxda ahaan jiray oo ama ha ahaadeen madax siyaasadeed ama ha ahaadeen kuwii xirfadlayaasha waaweyn ahaa oo xafiisyada waaweyn joogi jiray carruurtayda waxba ku tari kari waayeen halkaan ku aragnay laakiin gabdhuhu intay ka xirteen ay reerihii odaga doorkiisa ay galeen oo waxaan afqalaad lagu yiraahdo bread inners dadka rootiga reerka u hela inay iyagu noqdeen oo ka shaqeeyeen roolkaas oo dagaalkii intuu dhacay dadku islaayay markii la kala qaxay ay qaateen waxa weeye dowr baal dahaba ku qormay oo meel walba taariikhda Soomaaliya ka galay oo shir walba la isugu yimaado laga aqoonsaday aniguna aan aqoonsanahay waana ku mahadsantihiin doorka waxaa u bannaan marka mudana hadda ay ku hawlaayeen weliba gaar ahaan intii Puntland la dhisay oo wasaarad la sameeyey dumarka horumarintooda u gaara iyo arrimaha qoyska wasaaradda dumarka kaliya uma gaar aha laakiin qaybta weyn bay leeyihiin raguna waa la leeyahay loo qoyska meesha ku jirana qoyskana waa la yaqaanaa muxuu ahaay cidda madaxda u ah halkaas yaan lagu qaldamin waxa weeye haddaaye waxay lahayd odagu waxa weeye saaxiibka haweenka waa run maxaa yeelay waxaan garanayaa dhibaatada ay qabaan baan garanayaa oo dhaqanku qaar ahaan oo u geystay maaha diinta islaamka waxay u ogoshahay inta anigu aan ka aqaan wadaadada aniga lagu tirin jiray welina waa ka mid ahay laakiin hadda markii tiro bateen baan anigu meel gooni istaagay waxa weeye waxaan ka warhayaa inay xuquuq badan oo inta ay malaynayaan
كبدن دينتو وقشة لكن سيدي لو هرجلينها وين دبعته وحنا حقوق داس كهر تاجر لبشي بدوا وحوي جهلي بدنا وحوي رقم قبلية نتك جهلي وحنا يا إن حلوا هذي دونه وقت بيقعد الإنسان سببت وحوي ضدك وحبرت قبلها وبدأت لماذا كسو أرجني قبله ودف دور تعليم تكهر وساقط لكن ويلاش بكون بدين qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ee shirkan ka soo qayb galay ee ka yimid gobolada ayaa waxa ay ka hadleen inta uu socday shirka iyagoo cabiraya sida ay u arkaan shirkan saddexaad ee haweenka iyo doorka haweenka ay ku leeyihiin arrimaha dalka isla markaana saadaaliyay kalsoonida ay ku qabaan in qodobo wax ku oola ay ka soo baxaan inta shirka uu socdo aniga magacayga Xaliimo Xasan Deer waaye gobolka aan ka yimid gobolada dhexe ee Galgaduud gaar ahaan degmada Balanballe waxaan ku faraxsanahay aniga professionkayga waxa waaye NGO women group horumarinta haweenka la dagaalanka jahliga iyo u qareemida danyarta waxa waaye mid farax dambe iyo hadii alla ku rooyo kalsooni dambe iyo hadii ka ku deeshadna dambe la weeyay ku deeshad dambe waxaan marka u rajaynayaa cimri dheer iyo caafimaad qab qoonki gabdhihii soo xafladda maanta soo diyaariyay ka soo shaqeeyay hadii alku inta isku soo duway gobolada Soomaaliya oo dhan ilaa Itoobiya dadkeedii isugu keenay kuwaas oo aan aragnay inay yihiin Soomaali dhab ah inay yihiin kana shaqeynayaan Soomaaliya inay midowdo dhibtii ku jirta Ilaahay inuu ka saaro annagana waa u ducaynaa waxaan leeyahay Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha jirto Soomaaliya ha israacdo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلمدوق وحن كامل هاي هوينك قلمدوق شركان دا دور شير Garowe شير هوين بانو أمد ويعني هرمرينتا هوينك يصير هوينك نبض أقاش قيان هذا مد كان ما أنت وحاول نمد هوينك دور كل هايين بقول كي صدم كيلو قرشة مهلين بانو نمد ماشان حدي أي هلنا إن كبدا سير راديان haddii ay sahelina sidii ay ku heli lahaayeen boqolkiiba 30 kilo qorsheeyay inaan ka tashano haweenka ilaa gobolada dhexe way ka yimaadeen ilaa gobolada Puntland Muqdisho sidoo kale shirsaan oo kale ka dhacay oo haweenku iskugu yimaadeen marka in haweenkii Muqdisho shirkaan oo kale iskugu yimid iyo haweenkan isku waafaqaan in haweenku doorkoodii ay lahaayeen siyaasadda ku lahaayeen raadsadaan ayaan isku aad baan ugu faraxsanahay haweenku inay siyaasadda doorka ay ku leeyihiin raadsadaan waxa yarkan aan ku socono aan ku nuxnuxsanayna waa doorkii haweenku ay ka qaateen dibadhiskii haddana haddii aan siyaasadii galno Soomaaliya waxaan qabaa door fiican ay ka sii qaadan siyaasadii haddaan galno awalna aan waxbarashadii iyo caafimaadkii aan horumar ka sameynayna door weyn aan ka qaadanayna markaas hadda siyaasaddan ka bedelan ama shirarka dambe la iskugu imaanayo inaanan raadsan oo odayaal aan u raadsanay وهوانكو حمينتا ay leeyihiin ragga markay halka la dhigo haweenku ximiinta ay leeyihiin halka in la dhigo ayaan ugu baaqayaa gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta inay iska farka noqdaan aan qabiil jirin ee haweenku haween yihiin Soomaaliyeed guul aad iyo aad nagu soo hoyatay inay tahay waan ku faraxsanahay waana aan ku qanacsanahay gobolka Mudug baanu sadcaal dheer ugu soo galnay annagoo tixgelinayna ma jeeska ay noo soo didhay wasiiradayadu iyo wasaaradayadu waxaan ugu qanacsanahay si boqolkiiba boqol waxaan mar walbaba waanu galnaa oo hadaanu gabdhanahay isku duubni meel walba horta gabari joogto gabari waa gabari horta meel walba ay joogto waa gabari waa isku far gabari waa ceebka saliin gabari waa birimagaydo gabari waa taagan gabari waa halgamaa waa dadka dhibta adduunka markii burburkii Soomaaliya masiibadu ku habsatay gabdhaha Soomaaliyeed waa gabdhihii dhexda xirtay oo u halgamay maareynta qoyskooda marka hore waxa la yiraahdaa ninkii reerkiisa wax ka tarana ninkii reer kale wax ka tarana nin dhalayde asalu meeti gabdhuhu markii hore dhexda waxay u xirteen maareynta qoyskoodii iyo ilmahoodii waxay kale too dhexda u xirteen oo ay ku dareen bulshadii ay ku noolaayeen oo ay la dhaqmaayeen waxay dhexda u xirteen bulshooyinka kale oo dariska ay yihiin isku xirkoodii say isugu xiri lahaayeen oo matal hadda gabdhaha Galmudug gabdhaha Galgaduud gabdhaha bay dhabaladweyne gabdhaha oo dhan kuwa xamar jooga waanu isku xirannahay waxaanu wada qaadanaa wada shir baanu wada galnaa wacyi galin baanu wada galnaa way iska warqabnaa taleefanadaanu kala haysanaa waxa weeyaan meel ay joogto gabdhuhu dadkana ma kala qabaanin waxaanu arkaa gabdhuhu inay yihiin farta kaliya oo maanta ka nool burburkii Soomaaliya ka baxsatay
weeyaan waxaan leeyahay gabdhuhu waa xabadii masagahayd oo kale iyo mooye dhexdood ka baxsatay bay gabdhuhu bulshadooda maanta u yihiin ama bulshada ay la joogaan ama kuwa dariska ay leeyihiin markay goboladoodii gabdhuhu sugeen iyo bulshada ay ku dhex noolaayeen waxay sugeen bulshooyinkii iyo goboladii kale oo dariska ay ahaayeen si ay wacyigelin isku dhaafsadaan oo ay baraarujiyaan oo u ogeysiiyaan baahi jidha inay u ogeysiiyaan bulshooyinka dhanka kale sargaal ka tirsan hay'adda UNDP ee ka mid ahaa madaxdii UN-ka ee shirkan ka soo qayb gashay ayaa waxa uu halkaasi ka jeediyey in 30 deeq waxbarasho oo gabdhaha ay ugu deeqeen haweenka Soomaaliyeed si garaadka haweenka Soomaaliyeed kor loo qaado taasi oo ay soo dhaweeyeen haweenka Soomaaliyeed ee shirkaasi ka qayb galay isla markaana u mahadceliyay hay'adda UNDP iyo madaxda UN-ka ee isku howlay in deeqda waxbarashada ee la siiyo gabdhaha Soomaaliyeed ee maanta dhameystay jaamacadaha dalka kulankan intuu socday haweenka ay ka doodayeen fikradahoodana ay ka dhiibanayeen xaqiijinta qoondada ka qaybgalida arrimaha siyaasadda 30% ee haweenka Soomaaliyeed ee sida suurtagalka ay u tahay ayaa waxa dhanka kale wax badan laga hadlay oo si weyn looga dooday geedi socodka nabadda Soomaaliya ee ka kala dhacay Muqdisho, Garowe, Gaalkacyo, London, Istanbul, Ethiopia iyo Kenya iyo doorka haweenka ay ku lahaayeen shirkan ayaa waxa ugu dambeyntii ka soo baxay isla markaana laga soo saaray go'aamo gaaraya ilaa 9 qodob iyadoona guddi 13 xubnood lagu magacaabay halkaasi waxaana qodobada shirka ka soo baxay ee laga soo saaray halkaasi uga dhawaaqday Marwo Shamhaad oo kamid ah ka soo qaybgalayaasha shirkan dhanka kale qaar kamid ah haweenka shirkan ka hadlay ayaa intooda badan waxa ay si faahfaahsan u sheegeen in dhammaan haweenka Soomaaliyeed ay isu taagaan midnimada haweenka iyo doorka siyaasadda dalka ee haweenku ay ku leeyihiin isla markaana aan la dafrin xaqa haweenka ee siyaasadda gabagabadii shirka ayaa ka qaybgalayaashu waxay soo saareen baaq ku aadan arrimaha laga doodayay kaasoo lala midayn doono go'aamaday ka soo baxay shirka kan la midka ahaa oo ka dhacay magaalada Muqdisho waxayna go'aamadan u qoran yihiin sida soo socota go'aamadaas oo loo wada dhan yahay dadka shirka ka soo qayb galeen ay soo saareen baaqa in haweenka Soomaaliyeed wax walba oo ay raadinayaan ay asaas u tahay shariicada islaamka sida ku cad Quraanka Kariimka iyo sunnada Nabiga calayhi afdal salaatu wassalaam labo in haweenku ay ku raadsadaan xuquuqdooda siyaasadeed ee ka maqan codka haweenka Soomaaliyeed oo midaysan saddex in odayaasha dhaqanku ka taxadaraan ku tagrifalidda qoondada haweenka ee 30% afar waxay haweenka Soomaaliyeed ku baaqeen in 30% ee haweenka la siiyay sida ku cad Garowe 1 and 2 laga dhigo qodob dastuuri ah iyaga oo mudan intaas ka badan in haweenku ay door muhiim ah ka ciyaaraan xallinta khilaafaadka iyo dib u heshiisiinta qaran in xubnaha haweenka matalaya ee ka qayb galaya ansixinta dastuurka iyo baarlamaanka ay noqdaan kuwa lagu xushay sumcadda ay bulshada dhexdeeda ku leeyihiin aqoontooda oo ah tiir muhiim ah kartidooda iyo ka go'aanshahooda u qareemidda iyo kor u qaadidda xuquuqda siyaasiga ah ee haweenka toddobo in kor loo qaado aqoonta diiniga iyo maadiga ah ee haweenku u suurtagelinaysa meeqaanka gaaridda arrimaha dhaqan dhaqaale iyo siyaasad sideed in haweenka Soomaaliyeed ay soo bandhigaan baaqiyo ku aadan mowqifkooda haddii lagu guuleysan waayo 30% la siiyo haweenka isla markaasna ay abaabuli doonaan barnaamijyo ka dhaca dalka iyo dibaddaba sagaal waxaa la magacaabay sidoo kale guddi ka kooban 13 xubnood oo loo xilsaaray xaqiijinta doorka haweenka ay ku leeyihiin hannaanka iyo dib u dhiska dalka isla markaasna ka kooban qaybaha shirkan ka soo qayb galay oo la shaqayn doona guddigii haweenka ka qayb galay shirkii Muqdisho intaas ayaa la isku afgartay waxaan wabillahi tawfiiq waxaan kaloo idin rajaynayaa aan ku soo gabagabaynayaa Ramadaan wanaagsan wa kullu caam wa antum bi khayr bisha Ramadaanka Ilaahay ay naga wada aqbalo
dambigeena iyo kii waalidkeena allaha dhaafo. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska Marwo Caasho Geela Diiriyo oo ka hadashay ugu dambeyntii soo xiritaanka shirka ayaa u mahadcelisay dhammaan ka soo qaybgalayaasha shirka iyo cid walba oo ka qayb qaadatay dhiirigelinta haweenka iyo qabsoomidda shirkan. waxayna sheegtay in loo baahan yahay haweenku inay isku duubnaadaan oo ay gacanta isqabsadaan. ugu dambeyntii qaar ka mid ah haweenka shirkan ka soo qayb galay ayaa tix buraanbur iyo sugaan ah oo mahadcelin iyo boorin u jeediyay haweenka guud ee Soomaaliyeed iyo doorka haweenka ay u leeyihiin arrimaha dalka. wargolku dhalan maayo idinkaan garsoore noqon oo geesi talin maayo idinkaan guddiga ku jirin oo gogol la dhigi maayo idinkaan guryaha u feyn oo geelu dhali maayo idinkaan ugaawatoli wargeelu dhali maayo idinkaan ugaawatolin oo gogol la dhigi maayo idinkaan guryaha u feyn ee gabdhaha Soomaaliyeed oo garbaha ka siman go'aan adag yeesha garabkiina laha gale adag yeesha garabkiina laha gale war xawayaadan raggu waana xoogi jiray xaquuqdii aabba waa naga xukumi jireen xafiiskan soo galay nagu xaqiri jireen xilaa midkii naga dhigtaa nama xaq dhowri jirin xayaadka waxaan sidniyo xoolo waxaan dhaqnaba maalintaan xoog yaraynuna xori jiray haddaanu xanaaqno waa nala xanuujin jiray ee xaq baa naga maqane goorma xisaabi tahay naga maqane goorma xisaabi tahay war hooyo waa tiir bira oo aan ku taaganahay lama tarmeen oo tigaad dhacda lama noqdeen taliye iyo taajir iyo taajun lama dhaleen ragow taageera oo yaan la turunturay. daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkaasi gaarka ah ee aan ka diyaarinay shirkii maalintii khamiistii ee dhaweyd uga furmay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland isla markaana kusoo gabagaboobay isla magaaladaasi ee qodobada laga soo saaray ee haweenka Soomaaliyeed isugu yimaadeen kaasi oo looga hadlayay xoojinta iyo dhiirigelinta qoondada ka qaybgalka arrimaha siyaasadda 30% ee haweenka Soomaaliyeed. barnaamijkan waxaa idin soo diyaariyay TV-ga Haweenka xafiiskiisa Garowe waxaan idin soo jeedinaya anigoo Ilyas Axmed Cilmiya. inta barnaamij kan lamida ku kulmi doono dhamaanteen isku duuban waxaan idinku dhaafeynaa nabadino.